maxay kala yihiin safaarad iyo qunsuliyad? 24 years without this flag fluttering in America's capital, Somali Americans say the end of diplomatic exile represents a moment of hope and ambition. inkasta ay ujeedo midowda adeegaan, haddana waxaa jira farqi u dhexeeya safaarad iyo qunsuliyad. aanse ku horreyna safaarad. safaaraddu waa wakiil dawladeed oo shaqadeedu ay tahay fududaynta xiriirka dal loo wakiishay, xoojinta xiriir diblomaasiyadeed si loo horumariyo siyaasadaha iyo arrimaha dibadda. mansab ahaan safaaradda ayaa ka weyn qunsuliyadda, taasoo markasta saldhiggeedu uu yahay caasimadda dalka loo wakiishay. qunsuliyadda inta badan kama shaqayso arrimaha siyaasadeed, balse shaqadeedu waa kobcinta ganacsiga, xiriirka dalxiisayaasha iyo fududaynta safarada muwaadiniinta. inta badan xarumaha qunsuliyadda waxay ku yaalaan magaalooyin caan ku ah ganacsiga iyo dalxiiska. qunsuliyaddu waxay ka duwan tahay safaaradda, waxayna xarun ku yeelan kartaa wax ka badan hal magaalo oo ka mid ah dalka loo igmaday ka shaqayntiisa, taasoo ku xidhan tirada muwaadiniinta ah ee dalkaasi ka jooga. si kale haddaan u dhignana, safaaradda ayaa ka weyn kana muhiimsan qunsuliyadda, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay wakiil diblomaasiyadeed oo joogto ah, maadaama ay mas-uul ka tahay siyaasad iyo xiriir laba dal. safaaradaha waxay fuliyaan howlo dhowr ah sida matalaadda iyo kobcinta arrimaha diblomaasiyadeed, ilaalinta iyo horumarinta xiriirka laba dal, ilaalinta xuquuqda muwaadiniinteeda ku nool dal loo wakiishay, bixinta dalkugal, baasaboorka iyo sharciyeynta dukumeentiyada lagama maarmaanka ah, soo gudbinta warbixinada ku saabsan dalka martida loo yahay iyo shaqooyin kale. haddaan u nimaado mar kale qunsuliyad. qunsuliyaddu waa nooc ka mid ah ergooyinka diblomaasiyadeed ee la howlgala safaaradaha. shaqooyinka qunsuliyadda waxaa ka mid ah bixinta dukumeentiyada la xidhiidha arrimaha ka baxsan siyaasadda, xoojinta xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya laba dal, hagidda dalxiisayaasha, bixinta warqadaha sharciga ah ee khuseeya, ka warhaynta qurbajoogta ku nool dalka loo wakiishay, kobcinta isdhaafsiga arrimaha ku saabsan xiriirka, dhaqanka iyo kan waxbarashada.